السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب channel كذا كنت حنمل ودوني دعلي إذا كجوكتان وحيدين لها دور ونكسن ما أنتو حنكادر وهل قلب Soomaalidii uu ahay gundhig muhiim u ahay oo balse maanta aan la tixgelin laga soo bilaabo dagaaladii 1980 meedii wixii ka soo bilaabmo ama 90 meedii wixii ka soo bilaabmo waxay noqdeen wax iska caadi ah berigii horena aad baa loo tixgelin jiray ereygaas oo ah erey muhiim ah Soomaalida waxa waa birmageedi ereyga la birmageedo ama birmageyso nooca qaado waxaa la birmageedo ereyga macnihiisu waxaa loo qabandigaa dadku wax garadka ama wax soo arkay si wax loo qabandigaa waxa kamid ah bir inta aan birta geenin baa laga hadlaa marka birmageeda markii lagu leeyahay inta aan birta geenin aan haddii ay dagaal dhacaan ama khilaaf u dhacaan ama waxa la jiray laba qolo is dagaalaan ama dad isu gudbaan ama dagaal sokeeye ha noqdo ama shisheeye ha noqdo mid deerka wadan gudihiisa ka dhacay ama wadanka dibadiisa lagaga soo duulo ha noqdo waxyaalaha inta badan lagu xadgudbo laakiin maanta iska noqdo wax iska caadi ah oo dhaqan gaar ba noqdo hadda maanta in lagu tunto si walba loo dhaqmo kadibna wax yar oo xal aan ahayn ruuxii binaadamkiina aan bogsoonaynin oo dhibka u geysatay hadhow dambana cuddi iyo cuqdadii qabaalo dambana oo argos iyo waxyaalo kala samaysanayo lagu qabto birmageedo waxaa la dhahaa sida markii dagaal u dhaca dadka hore waxay samayn jireen markay is dagaalaan waxyaalo badan baa laga wareegan jiray waxyaalaha laga wareegan jiray waxaa ka mid ah dumarka oo nooca doona ha noqda haddii ruux dumarku dagaal ku jirin oo marka dagaalku ku jiro uu dagaalamaynin ama askari ha noqdo ama raacid ha noqdo marka uu dagaalamaynin gacantaada laga ilaalin jiray waxba looma geysan jirin weliba khaasatan kuwa uurka leh iyo kuwa carruurta haystaan iyo duqeyda maamooyinka waayeelid dumar oo dhan ba inta badan gacanta laga ilaashin jiray gacan looma geysan jirin waxaa soo xigay carruurta cunugoo kale hadduu qaangaar yahay hadduu qaangaar ka yar yahay ama qaangaar buu yahay wad markaa soo barbaaraya dagaal uu ku jirin sidoo kale waxba lama yeeli jirin banaankaasaa laga mari jiray bulshada xishmad bay ku lahaayeen labada ruux waxaa soo xigay sheekh anaga reer Kenya waxaan dhahnaa ruux walba dugsi dhigaya sheekh waay laakiin dadku way kala saaraan sheekh waxay dhahaan ruux masaajidka jooga wacdinaya oo la garanaya caanka sheekh lahaa marka laakiin sheekh la waay dugsi dhigo ama ha wacdiyo ama nin diin haysto oo diin hayo oo dadkii diin wax noqdo ruuxaas oo kale bulshada looma xadgudbi jiro waxba lama yeeli jirin nin bulshada wuxuu ahay astaan gaar u ah oo macno wuxuu ugu fadhiyay aad u wanaagsan bulshada ahaa iyo ka dhacahay sheekh ama aan dugsiga marka dagaal hadduu dhaca ninkaas oo kale waxba lama yeeli jirin waxaa soo xiga dadka oqaash wax garadka ah oqaash oo kale malaaqyada oo kale dadkaas oo kale ogaashada oo kale dadkaas oo kale ayagana waxba looma geysan jirin haddii dagaal u dhaco saas oo kale hadda maanta oo kale waa la dayn jiray dadkaas oo kale waxba lama yeeli jirin dadkaas oo kale waxaa la birmageedo waxaa soo xigay waxaa kaloo soo xiga takhaatiirta oo kale saas oo kale waxba looma geysan jirin waa tan hadda takhaatiirta dadka hadda ama maanta waxba loo geysan takhaatiirta inay kusoo hartaan jeclahay meelaha waxaa lagu leeyahay takhaatiirta xuduudda leh meelaha dagaalku ka dhacay galayaan dadkii dhaawacay wixii soo qaadaan in xabad ifta ay ku dhacdotooda waa gaar laakiin ilaa hadda waxba lama yeelo dadka kale soo haray maanta astaantaas kusoo haray waxaa jira takhaatiirta xuduudda leh waxaa kaloo jira geedaha weyn oo la harsado oo saas oo kale waxaa la jira birmageeda waa geedkaas oo kale lama gooyo birmageeda allah marka wixii oo idin maanta waa laga amaaday maanta waxaa taagan ceeb weyn baa taagan waxaa taagan duqeydii la dilo odayaashii la dilo ogaasidii la dilo oqaashii la dilo sheekhyadii la dilo maxaa la jiray carruurtii la dilo haweenkii uurka lahaa la dilo haweenkii waayeelada la dilo geedihii weynaa la harsan jiray la jaro geedihii kala soo kubacayo geedaha kala soo gaaraya la jaro wala waxyaalo badan oo iska dhacay carruurta yarka la farxumeeyo waxaasoo dhan waxay soo noqdaan wax caadi marka warbaahinta fiirsid waxyaalaha la sugi karo oo dadka warbaahinta hadda way sugayaan waxaasaa ka mid ah inay maqlaan waxbaa dhace waxbaa dhintay waxbaa la dilay
kule macnaha ay u sameynayso gaarka u leh aan ma garan karayo. waxaa jirtay mar la wareystay waxa la jiray nin wariyacaan ah oo idaacado u shaqeeyo oo wadamadan qurbahana ku dhashay oo ka shaqeeyo marka Soomaaliya waxay ku farxaan intay sheegi lahaayeen waxba nabad ama waxba soo kordhay ama waxba faa'iido intay sheegi lahaayeen waxba dhintay waxba dhaawacmay waxba la dilay sheegan baa iyaga fiican iyo warkooda wax saasi ku yeeshaan hataa wariyaha markuu warka aqrinayo codkiisa wuxuu noqonayaa cod sare oo hay warka nooca markuu aqrinayo laakiin wararkan kala caadiga oo baraaq soranka markuu aqrinayo waa iska daciif waa iska wax iska caadi ah iska noqonayo marka horta waxaan leeyahay alla qaatimada loo hagaajiyo qaatimada iska halawday mar wadii inta hadda aan soo sheegay oo barnaamijyada oo lagu tumanayo dhaawac loo geysanayo oo aan la qadarinaynin bulshada aan qadarin ku leeyahay aan xushmad ku leeyahay wanaag ku leeyahay horta wax hagaagaya waa iska tii ilaahay gaar waay laakiin aadanaha maanta joogo wanaag waan raadinayna oo laakiin wanaag walba la raadiyo xumaan baa la daba dhigaayeen marka intuu ruux wanaag raadinayo xumaan daba dhigaayeen lagama sugaayo hadafka ruux bini'aadamka ama Soomaalida ay leedahay in la gaaro mana maleynayo waayo agoontii la dilayaa way ku jirtaa barnaamijyada agoontu rajooyinka ku jiraan masaakiinta ku jira yatiinta waxa dhan baa ku jiraan waxa dhan waa barnaamijyada waxa marka laga tago waxa dagaalamo waxay ahaan jireen laba beel oo isku heshay meel biyo ah ama daaq isku heshay dagaalamo jiray waxa dagaalamo jiray laba darsa dagaalamo jirtay labada ruux oo dagaalantan xal baa loo heli jiray maanta waxa ilaahu laba ruux may dagaalantan ka faa'iideysan taala marka hadii ani iyo ruux aan is dagaalano ama ruux iyo ruux kale is dagaalaan ani garab aan helayaa garabka helay maxaa way garabka helay waxa way inta turkeeda garab ay sinayaan waxay garab ugu sinayaan ninka ani wax yeelay inay dagaalaan ninka turkish waxay garab ku sinayaan ninkii la dagaalamay garab ku sinayaan marka ani ruux waa is dagaalnay xal waa la gaari karaa way gaaban tahay laakiin goorma xal la gaara hadii ani lagu soo duulo ama ruux aan ku duulo inta haday ruux baan soo dagaalan hadii odaal ay doomaraan wax iska easy waa marka duulka oo la soo doomara oo la soo duulay oo ya wax kala keenaya marka maanta Soomaaliyeey xaalka meel xun maraya intaas oo soo noqonan ma maleynayo in ay wax hagaaga doonaan way waxa waaye nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam walaalkaada haduu gardaran yahay u gargaar hadii laga gardaran yahay u gargaar asxaabta bariga joogto way waxay dhahan qeyr qalqalay walaalkii laga gardaran yahay waa u gargaari karaa laakiin hadii uu gardarayso u gargaara walaalka haduu gardaran yahay waxa uu gargaaraysaa xaq ah u sheegaysaa waxa leedahay waa qaldan tahay adaga meesha kama jiro intuu ka jira waa laga gardaran yahay haddana xaq ah u gargaaraysaa waxa leedahay raali noqo waxaan way dhacan ninkan walaalka way bal insha Allah bal sheedaan ba ya kulug lahay naf waxa uu jeclaysanayn adna karaal noqo walaalkaas ka saamix oo u gargaartay labada mar waa u gargaartay laakiin gargaarka micnihiisa ma ahan asxaabta bariga waxay u qaateen walaalkaada oo gardan u gargaar in ay ayagana qaataan maxaa la jiray ay qaataan dagaalamid ay qaadaan oo ninkii ay u hiliyaan taam ahan nabiga inta markaa jirto ka jaahil bixi xaqana uu sheegay marka maanta Soomaaliyeey aan soo gargaarno wixii bariga jiri oo dhaqankeena oo hayaan soo ceshano barnaamijyada hadii lagu dhaqmo waxyaalo badan hagaagi يعني وحواي ويلده لدرين وقاشو لدرين شيخده لدرين مامين كون لو حد بدون لدرين ويلده لو حد بدون وحاسودان محل جري انت ليدته انت بولشد مهم كوي ولا بدبادي واي marka insha Allah waqtiga ayaan saamixinin channel kan si awar bixintu heshid like sar subscribe sar video no insha Allah wayno waqti dambe iyo warbixinta lamid insha Allah channelkeena la socdo Jamaal Media Jamaal official waxa way Jamaal official marka la socdo insha Allah aan iska warhayno